madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wafdi uu hogaaminayo safar ugu baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta halkaas oo kaga qayb gali doono shirweynaha sanadlaha ee loo yaqaan shirka dawladaha adduunka World Government Summit kaasi oo ay isugu iman doonaan in ka badan 130 kamida madaxda caalamka kaasi oo loo arko fursad weyn oo ay Soomaaliland ku heli karto in ay mar kale ka samayso halkaasi qabanqaabada iyo dadaalada ku doonayso in dalalkaasi kaga dhaadhiciso in ay dhankooda ka hesho aqoonsi caalamiya dawladda Imaaraadka Carabta oo saaxiib dawladda Soomaaliland oo iyadu wada qorshaha ay Soomaaliland ku helayso madaxda caalamka ee halkaasi isugu imanaysa warbixinteena ayaynu ku eegi doonaa ujeedada safarka madaxweynaha ee shirkaasi madaxda oo halkaasi kula kulmi doono muddada uu joogi doono khudbadda uu ka horjeedin doono madaxda caalamka hortooda madaxtooyada Soomaaliland warka ay ka soo saartay safarka iyo sidoo kale warbixin gaar ah oo idinka diyaarinay isla markaana aynu si gaar ah ugu eegi doono waxa uu yahay shirka dawladaha dunida ee si sanad kasta loogu qabto magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta dhamaan qodobadaasi ayaynu ku eegi doonaa warbixinteena u diyaar garooba aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa safar ugu baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta gaar ahaan magaalada Dubai safarkaasi loo arko in uu yahay mid mar kale Soomaaliland ay ku heli karto in ay indhaha caalamka ku soo jeedisa dalkeega iyada oo ay xusid maantahay in Soomaaliland ay shirkaasi tagayso markii ugu horeysay ee ay taariikhda heshay aqoonsi caalami oo ay ka heshay mid kamid ah dalalka quwadaha adduunka ee xilligani waxaana halkaasi si weyn isha loogu hayaa dhaqaaqyada siyaasadeed ee madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ka dhex samayn doonaan madaxda ka soo qayb gasha shirweynaha marka laga tago khudbadda iyo hadaljeedinta madaxweynaha oo markan si weyn ay u wada garanayaan amaba ay si fiican u yaqaanaan macnaha Soomaaliland madaxweynayaasha ganacsatada iyo madaxda kale ee shirkaasi ka qayb gasha xafiiska afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland oo warka soo saaray safarka madaxweynaha ayaa waxa lagu yiri warmurtiyeedkaasi haddii aynu ku horeyno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo wafdigu hogaaminayo ayaa safar ugu baxay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta halkaasi oo madaxweynuhu ka qayb gali doona baa lagu yiri shirka sanadlaha ee kulanka dawladaha adduunka World Government Summit oo ka dhacaya magaalada Dubai safarka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ay madaxtooyadu sheegtay in uu yahay mid xambaarsan macna diblomaasiyadeed oo muhiim ah isagoo ku matali doona qaranka Soomaaliland madal caalami ah oo ay ku kulmayaan in ka badan 130 dawladood oo ka kala socda caalamka hay'ado caalami ah iyo madax kale oo saameyn ku leh go'aanada siyaasiga ee dunida ee xilligani madaxweynaha ayaa warkan lagu sheegay madaxtooyada ka soo baxay in madashaasi uu ka gudbin doono fariin ku saabsan waaye aragnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee xagga dawlad dhiska nabadda dimuqraadiyadda iyo horumarka taasi oo xoojin doonta ayaa lagu yiri warka doorka muhiimka ah ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku leedahay gobolka Geeska Afrika iyo caalamkaba muddada ay madaxweynaha iyo wafdigiisu ku sugan yihiin dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa la sheegay in halkaasi kula kulmi doonaan madax iyo mas'uuliyiin caalami ah kuwaasi oo diiradda lagu saari doono iskaashiga horumarineed maalgashiga ganacsiga amniga iyo arrimaha mudnaanta u leh danaha guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka qaybgalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madasha caalamiga ee kulanka dawladaha adduunka waxa mar kale uu muujinayaa danaynta sii kordhaysa iyo kalsoonida ay bulshada caalamku ku qabto jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliland ee laga hadlay ujeedada safarka madaxweynaha haddii aan intaasi kaga nimaadno warka ka soo baxay madaxtooyada haddaba waa maxay muxuu yahay shirka dawladaha adduunka ee loo yaqaano World Government Summit ee lagu asumay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa shir caalami ah oo sanad walba lagu qabto magaalada Dubai ee dalka Isutaga Imaaraadka Carabta shirkan waxa uu isu keenaa hogaamiyaasha dalalka caalamka madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaareyaal wasiiro iyo mas'uuliyiin dawladood khubaro caalami ah hay'ado caalami ah sida hay'adaha UN-ka World Bank iyo sidoo kale wixii la mid ah ee kamid ah kuwa qaybta ka ah ama saameynta ku leh caalamka shirkado waaweyn iyo hal abuurayaal tiknoolajiyada ku saabsan ayaa iyaguna ka soo qayb gala shirkan dawladaha dunida ee lagu qabto sanad kasta magaalada Dubai muxuu yahay ujeedada shirka ujeedada ugu weyn ee shirweynahani madaxweynaha Soomaaliland uu ka qayb galayo ee shirweynaha dawladaha adduunka oo la qabto sanad walba ayaa waxa ay yihiin ujeedooyinkiisa ugu muhiimsan ee loo qabtaa 3 qodob kuwaasi oo kala ah in laga wada hadlo mustaqbalka dawladnimada ee dalalka caalamka 2 in la wadaago xalal cusub oo wax ka qabta caqabadaha caalamka hareeyay ee hadda ka jira adduunka iyo qodobka 3aad ee ugu dambeeya oo ah in dawladaha soo koraya ee adduunka laga caawiyo horumarinta adeegyada dadweynaha dhinaca kale maxay yihiin mowduucyada ugu badan ee shirkan laga hadla sanadlaha ee Dubai lagu qabtaa badana waxa laga hadlaa shirkan ama diiradda lagu saara arrimo ay ka mid yihiin tiknoolajiyada isbedelka cimilada caafimaadka iyo masiibooyinka waxbarashada mustaqbalka dhaqaalaha iyo hal abuurka iyo sidoo kale amniga iyo xasiloonida caalamka
shirka dalalka caalamka ee uu ka qaybgalay madaxweynaha Soomaaliland ayaa waxa ka qaybgala in ka badan 100 dawladood kumanaan ka qaybgalayaal ah khubaro dunida caanka ah sida ninka ugu hantida badan dunida ee Elon Musk loo yaqaano madaxa UN-ka iyo marti sharaf kala duwan oo ay ugu sareeyaan madaxda iyo boqorada caalamka inta ugu badani ashirweynahan dalalka dunida ayaa waxa u gaar ah ama gaar uga dhigay Dubai iyo Isutaga Imaaraadka Carabta waa mid ka mid ah shirarka dawladeed ee ugu waaweyn dunida waxa uu isku daraa siyaasad tiknoolajiyad iyo mustaqbal Dubai waxa ay muujisaa hoggaan caalami ah iyo hal abuurnimo ay doonayso inay ku hagto dunida isla markaana ay hormuud ka yihiin madaxda wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta marka laga tago shirka ujeedadiisa waxa laga hadla iyo qodobada aynu ka hadalnayba waxa iyaduna jirta shirkan sanad walba la qabto bilaha February ama March madaxweynaha Soomaaliland iyo wafdigiisa ayaa muddada ay shirku socdo waxa la filayaa in madasha shirka ka jeediyo khudbad dhinacyo badan taabanaysa taasi oo khusaysa dawlad wanaagga Soomaaliland ka jira horumarka uu dalkani gaadhay 34 sano ee gaarkiisa u taagnaa muhiimadda aqoonsiga uu dalkani u leeyahay ay Soomaaliland raadinayso iyo fursadaha maalgashi ee jamhuuriyadda Soomaaliland yaala kuwaasi oo madaxweynuhu ka horjeedin doono madaxda caalamka dhanka kale safarka ayaa la sheegay in uu yahay mid muhiimad gaar ah u leh xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashi iyo kan dhaqaale oo u dhaxeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta dhinaca kale shirka madaxweynaha Soomaaliland ka qaybgalay wafdigiisa ayaa intay Imaaraadka joogaan waxay wadankaasi kala hadli doonaan xiriirka iyo xoojinta siyaasadeed iyo kan diblomaasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah dalalka ka shaqeynaya aqoonsiga Soomaaliland soo jiidashada maalgashi cusub gaar ahaan dhinacyada dekedaha kaabayaasha dhaqaalaha tamarta iyo tiknoolajiyada guud ahaan qodobadaasi ayaa la rajaynayaa in madaxweynaha Soomaaliland uu kala hadlo madaxda Isutaga Imaaraadka Carabta madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa sidoo kale la filayaa in halkaasi ku yeelan doonaan madaxda iyo mas'uuliyiinta kala duwan ee dalalka ka qaybgalaya shirweynaha iyo hay'adaha kale ee caalamiga ah kuwaasi oo Soomaaliland ay doonayso in uga faa'iideysato loobiga siyaasadda ay ku doonayso inay hesho dalal kale oo soo raaca Israa'iil kaasi oo dhawaan ku dhawaaqay aqoonsiga Soomaaliland shirkan وسنة كسر لقبته إسلام مركان Soomaaliland uu noqonaya markii labaad oo madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro uu ka qayb galo ayaa falanqeeyaasha mustaqbalka dawladnimada ee Soomaaliland waxa ay tilmaamayaan in muhiimadda ugu horeysa ee Soomaaliland uu shirkaasi u leeyahay ay tahay in ay ka faa'iideysato arrimaha dawlad dhiska ee dalalka caalamka halkaasi kaga hadli doonaan iyo sidoo kale arrimaha maalgashiga halka dhanka kale la filayo in Soomaaliland inta uu shirkaasi socdo ee madaxda caalamka ee ka soo qayb galay shirweynahaasi ay kala xaajoodo intii u suuragal ah maadaama ay badan yihiin madaxda caalamka halkaasi jooga iyadoo Soomaaliland taageero ka helaysa Imaaraadka Carabta iyo Israa'iil iyo Soomaaliland oo wada socda madaxda caalamka ee ka soo qayb gashay shirkaasi muhiimadda ay leedahay in Soomaaliland la aqoonsado isla markaana ay ka mid noqoto dalalka caalamka maadaama Soomaaliya oo ay hore ugu hungowday midnimadeedii 1960kii ay noqotay dawlad fashilanta oo 34 sano ugu dambeeyay oo uu taageeraya caalamku ku guul daraysatay inay gaarkeeda u istaagto isla markaana ay samaystaan nidaam dawladeed iyo kala dambeyn ka jira guud ahaan Soomaaliya wixii warar ka soo kordha waxaad kala socon doontaan warbixinaheena dambe warbaahinta Gorfeye inta